السلام عليكم كسولو جنال كان رجدا نرشا حبنكي ترنكا تحريو كسو داتي السعد حنون بدن خاتم حمدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال ومركلا برنامج شديني تحناها قصوينكي منا إن لغو عبرقاتو وحان هل كان إذن كقصو قد بين دونا موضوع آد حساسوه وان إنبا ليسكا إن تريكرين إنغو إلهي كبريينا إنو كعبرقاتو قفل بودرينسان إنو واسج كجرو حبنكي ترنكا تحريو كسو داتي وقصة آد حنون بدن أو كل عدي ويل مسلمة aad taqawaa balse markii dambe ku dhintay khaatumo xumo aad u xanuun badan waxaana qof walba daawada dareemi kara ama dareemi doona cabsi iyo warwar wiilkan wuxuu la socday doon ganacsi oo ka timid mid ka mid ah wadamada khaliijka carabta kuna socotay badweynta Hindiya markii ay doontii meel la xasii marayso waxay ku hakatay jasiirad yar oo ka tirsan wadamadii la isku oran jiray Hindiyadii balaarnayd dadka doonta saaran oo u badan ganacsato ayaa waxa ku jiray qaar jasiirada ugu soo qasta zino iyo faaxishad ay kula kacaan dumarka jirkooda ka ganacsada halka degnaa sida caadiga maalintii waxa qof walba gala magaalada iyagoo qof walba uu soo qasdo howlo u gaara ganacsigiisa halka dhanka kale uu jiro wiil dhalinyaro ah oo doonta ka ah imaam iyo muaddim markay dadku ku mashquulaan hawshooda adduunyo wuxuu doonida ku dul akhristaa quraanka kariimka isagoo xilliyada salaadana dadka tujiya wuxuuna ahaa qof aad u khayr badan inkastoo qofka qisadani soo wariyay uusan faahfaahin buuxda ka bixin wiilka magaciisa balse qasadkeedu waa qisada waxaana maalin maalmaha kamida wiilkii yaraa u yimid nin kamida kuwa fuxshiga u yimaada jasiirada wuxuuna wiilkii ku yiri wiil yahow waa adiga habeenii maalin doonida dul saaranne maad soo degtid oo aragtid waxa ka jira caalamkan aan joogno wuxuu sii raaciyay aniga kuma dhahayo aan ku geeyo goobaha lagu tunto ama lagu caweeyo laakiin waxaan ku dhihi lahaa maad soo aragtid kuwa masaamiirta laqa dabkana qurquriya indha sarcaadkuna ku dheereeya wiilkii baa yaabay oo yiri oo waxaasoo dhan ma adduunka bay ka jiraan faasiqii baa ku jawaabay haa ee inakeen wiilkii ahlu khayrka ahaa wuxuu si halhaleela u raacay ninkii fasahaadka badnaa wixii la socdaba waxa albaabka laga istaagay guri yar oo cariisha ninkii baa wiilkii yaraa ka codsaday inuu xoogaa yar dibadda ku sugo uusan ka soo dhawaan guriga wax yar kadib waxaa dhagaha wiilkii ku soo dhacay qosol aan fiicnayn nuxnux wuxuu isceliyaba wuxuu u soo dhawaaday gurigii looga digay durba waxaa ka hor muuqata naag xishoodkii iyo dharkiiba ka qaatan wiilkii baa yaabay oo ku sii dhawaaday cariishkii wuxuuna ka eegay duleel yar wuxuu durba arkay wuxuusan weligiis arkin halkaas ayuuna ku haleelay gamuunkii shaydaanka wax yar kadib ninkii baa soo baxay oo wiilkii u kaxeeyay doonidii habeenkii oo dhan wiilkii yaraa muusan gam'in wuxuu hadba xasuustaa wixii uu arkay ileen gamuun shaydaan baa wiilkii haleelay markuu waagu baryay qofkii ugu horeeyay ee doonta ka dega magaaladana gala wuxuu noqday wiilkii oo siduu u socday galay gurigii fisqiga maalintii koowaad maalintii labaad iyo maalintii saddexaadba aqalkii cariishka ah kama uusan soo bixin oo fasahaad ayuu dhankiisa ka waday ilaa markii dambe dadkii doonti dareemeen oo yiraahdeen aaway muadinkii aaway imaamkii doonida markii dambe wuxuu naaqudihii doontii amray in wiilka la soo raadiyo waxaana loogu tagay isagoo howshii xumeed ku guda jira laakiin waxaa laga soo bixin waayay aqalkii markii koowaad markii labaad iyo markii saddexaadba waxay ku guuldareyseen dadkii in wiilka yar ay keenaan doonidii oo ay ka soo saaraan guriga wuxuuna codsaday in laga tago oo uusan laabanaynin naaqudihii doonta ayaa ka baqay haddii ay ka tagaan wiilkan in reerkiisu qabsadaan wuxuuna raggii doonta ugu xoog weynaa ku amray inay xoog ku soo wadaan wiilkii yarka ahaa maba ahan nin ahlu khayrka ahaa ee imaamka iyo muadinka ummadda u ahaa ee wuxuu isku riixay gees shishe oo doonida ka tirsan wuxuuna ka bixi waayey oohin cajiiba ilaa dadku ka baqaan inuu oohintaas u dhinto wiilkii af maba qaban ilaa mid ka mid a rakaabkii ku yidhaahdo war wiil yahow maxaa kuuku dhacay nin fiican baad ahayde sidee wax kaa yihiin wiilkii baa ku hadalgaabiyey iga aamus waxa igu dhacay moogide waa cajiib iyo makaag waxa wiilka ku dhacay ninkii baa isagoo yaaban ku yiri war heedhe balaayadan ha qarsanne maxaa ku helay wiilkii baa fayday xubinkiisii taranka misna waxaa ka daadanaya tixri wanacuudu billah subxaan allah ninkii baa yidhi ilaahayow balaayadan ayaan kaa magan galnay goor habeenbar ay tahay baa dadkii rakaabka ah waxay maqleen qaylo argagax leh markay yimaadaan goobtii wax ka qaylinayeenna waxaaba mayda wiilkii yaraa innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun haddii uu muuqaalkani kusoo gaaray sii sheergaray oo aad nasiib u yeelatay walaal sii gaarsii walaalaha kale si ay ugu noqoto mid ay ku cibro qaataan waana ku mahadsantahay daawashada muuqaalkani si ay ku soo gaaraan muuqaaladeena xiga ha iloobin